kala iyo kharashkeeda isku dheelitiraya habka la isku dheelitirayana waa sheegaya wuxuu ka hadlayaa in wax aanad haysan aanad isticmaalin in aanad commitment gelin ama gedib wax la yiraahdo gelin hadii aanad kharashkeeda hayn oo aanad wax si amaahan waana qalab soo iibsan wax walba marka hore la isla ogaado commitment la geliyo habka loo soo iibsanayana laga heshiiyo dabeetana wixii ku diyaarad soo iibsato habka loogu baahan yahay inaad soo iibsato ayuu qeexayaa maamulka lacagtu inay daah furraato ayuu qeexayaa oo wax walba la isla ogaado habka loo soo diyaariyay habka loo isticmaalay habka lacagu ku baxeen in la isla ogaado ayuu qeexayaa waxa uu qeexayaa waxaan budgetka ku jirin inaan la isticmaali karin budget hadaan leenahay budgetkeenu yahay 100 milyan ee cid loogu tala galay inaan ku ekaano ayuu qeexayaa waxa kale uu qeexayaa waxaan baarlamaanku ansixin inaan la isticmaali karin hadii 100 milyan 100 kale meel kaga soo biiraan isticmaalkeedu waa inuu baarlamaanku soo noqdaa hadii aanay meel u banaanayd oo fooga ah oo la arkay jirino aanay gelin ayuu qeexayaa golaha shacabka iyo wasiirka maaliyadda iyo xisaabiyaha guud iyo hanti dhowrka intaas oo dhan ayaa qof waliba doorka u ciyaarayo doorka looga baahan yahay ayuu qeexayaa mudane gudoomiye wasiirka maaliyadda ayaa ka mas'uula sida arinta sida oranaya sharcigu in deyn la galo ama dibad ama gude iyada oo laga haysto ogolaansho golaha shacabka taasoo qeexaya macnaheeduna yahay wasiirka iyo dawladdu deyn iskama gali karaan haddaanay marka hore halkan ku qeexnayn oo la ogolaanin ma gali karo ayaa halkan ku qoran waxyaalo fara badan oo noocaasa ayuu sheegayaa waxa kale uu sheegayaa maamulka khayraadka dalka in si transparent ama daahfuran looga shaqeeyo la isku ogaado ayuu qeexayaa cashuuraha iyo ururintooda dakhli ururinta in la isla ogaado oo lagu shaqeeyo shuruucda dalku leeyahay ayuu sheegayaa marka gudoomiye waxaan ku soo gabagabeynaa waxa weeye sharcigani marka uu la ansixiyo wuxuu noqonayaa sharci aad iyo aad u xoojiya shuruucdii hore aan lahayn waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa iyo ogolaataan in la gudbiyo oo loo gudbiyo gudida ku shaqale gudida dhaqaalaha